geeska dalka waad mahadsantihiin booqashada aad maanta noogu timideen magacayga waa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale hawshan waxaan soo waday muddo 12 sano ah isbitaalkan aad arkaysaan waa isbitaalkii ugu weynaa ugu quruxda badnaa Soomaaliya حباب training and research من 3 سنين إنه إسبيتال عصوب وأنا قلت لك الله قيبة الرجع هي قيبة الدمركة حتى وحنا قماضي جبا ما لنا صوص هذا قيبة الرجع وحنا لما قيبة الدمركة استندرك وحنا قلت لك الله إن استندر هذا لا غلك هر عالمي أيام قلت لك الله وإلهي مادي مركب بجابي هل دولار ما رأيس لكن وعنفها دبعتها أي قبان بكانا لأن ترى قدرنا كل حد مركا كجرا حباب من الهوسبيتاليس قبل ذلك يمردش أو 6 حرمات ويا لو قلت لك فاميلي أما قوس لو قلت لك كل لو قلت لك قوسنا اسبتال من هونكم تموس أيام أنت واحد كيبي لما تكون يسددي ما تفصلوا هاي المخطين إن أن شعبنا أم أبلغوا ولا لا الصوماليين قرب الجوجة هي النبي الرجلي كان هان قبل لكم كعابو إن عالية نور الشيخ محمد سيدا ولا شيء ورسي يوسف ولا عبد الرحمن وحيجوا ورير فرجينيا إنه إن مريكا إن يجا شفتي يقرأ وحوجا بيصوتنا دين بان قادرنا حتى وحن قبلنا إلا 6 كل $1 أو دين يفنتي بدن بيخبتين فريزي بدن بيسميين 6 كاس من نقول إيه وحن قعد سنينا إن بدعوينه ولك رئيس الوزراء خير برلمانك إنه ينصب ينفرزي دعونا هيس كسروريا دين تاسني نجم مكان نوع إنسان قيمة الدمرك أو سور كذا صوب اللي كتبته أنا أكيد دولتي قيمة الدمرك إنه نوع إنسان إن وحنا قرن جرا وحنا دولة وشعبك عروتي ذو عيكو جران كيلو عيكو جران مركا وحا يقول ويناتي شعبك لا يردرر ودردكم عبد مركا سبتمبر لبدكم يستدي توانكا سندكا شرويني عالمي السمبلي oo heer madaxweyne ayaa ka dhacaya garkuwa waxa looga hadlayaa mental health waxa ka qayb galay madaxweyne farmaajo iyo wasiirka caafimaadka fuusiya waxaan ku boorin lahaa war idinkoo xogagaa baltaga booqda isbitaalada ay ku jiraan bukaanada dhimirka dadka xogagaalka ah oo hawshaas muddada soo wadayna bal intaad la fadhiisataan xog ka qaata maxaa yeelay maanta WHO hay-adda caafimaadka adduunka qiyaas ay soo saartay 2008 qiyaas waxay tiri 3 qof baa dhimirka ka xanuunsanaya Nairobi baan ugu tegay WR-ka wakiilka WHO Soomaaliya Marty Everett xilligaas ayaan u tegay waxaan dhahay saan hadday WHO ay aaminsan tahay maxay wax ugu qabanlayihiin xaaladda iyo culayska cudurrada dhimirka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed waxay ugu jawaabeen weli kama aysan hadlin madaxda qaranka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka
sahlan ma aha waddankan muddo 30 sano ku dhawaad ah environmental problem baa ka dhacay kaasi oo sababay dad badan maanta inay la liitaan cudurada ku dhaca dhimirka anigan aan hadlayo I hope inaan dhimirka ka xanuunsan doono maxaa yeelay imise jeer baa laysiga in lay dilo imise ayaan goobjoog ka ah madaafiic soo dhacday ee ku dhacday deriskayga imisaan arkayay baabuur iska socoto anoo taagan la isaga furayo baaskii waxaasoo dhan waa firiin aniga ugu maqan shacabka soomaaliyeed oo dhanna intii markhaatiga ka ahayd witnesska ka ahayd la kulantay maqashay ka naxday kullida way xanuunsan doonaan ma aha qofka dhacdada markuu la kulmo inuu horay ka xanuunsanayo laakiin 4 sano 5 sano 6 sano 7 sano 10 sano kadib I hope waan xanuunsan doonaa waxaan goobjoog u ahaa dhacdooyin badan oo saameyn ku yeeshay maskaxdayga fikirkayga garaadkayga dareenkayga qof kastana waa sidii waxaan ku codsanayaa si ummaddan wax loogu qabto hay'adaha samafalkan ay ugu soo gurmadaan madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo labada guddoon baarlamaanka sanadka iyo kan golaha shacabka iyo baarlamentariga ruuxooda inay ka hadlaan walwalka cabsida fikirka waxaasoo dhan waa traumatized waxaan leeyahay marka si aan caafimaad wada helno waa in madaxda qaranka ay ka hadlaan xaaladda caafimaadka maskaxda mental health waxaa loo baahan yahay dowladda inay bixiso enhancing feasibility political commitment aniga keligayaan ahay halay garab istaago dowladdana deyntaaga bixiso baarlamaankana qaaraamo aad iyo aad baad mahadsantay wassalaamu calaykum